way jirtaa beesho shir bay qabsatay shirweynihii gacan libax ka dhacay danaheedana kaga arrinsanasay iyo wacyiga ka taagan dalka qodobada nuxurkooda waxa weeye shirka beelaha garxashis ay ku qabsadeen buurta gacan libax oo ahaa waxyaabihii ka jiray dalka Soomaaliland oo runtii systemkii loogu talagalay la leexiyay oo wixii lagu heshiiyay 19 la baalmaray ay kuna heshiiyeen laba beelood oo hagbad la baxay amba se jeegaantaas wixii laga yeeli lahaa bay ka tashanayeen dadku waxba ma naasiinin madaxweynena uma aqoonsanna waxaan u aqoonsanahay nin jeegaanta isagoo maamulkeeda u haya laakiin waxaan tusanaa Soomaaliland wixii la wada lahaa inuu leexday Soomaaliland baanu wuxuu sheeganay inay jeegaantu wax qaloocisayna waanu sheeganaa taanu ka tashanayna waxay ahayd jeegaanta wixii laga yeelayo hadii ay ku soo noqon weydo madashii la wada lahaa iyo wixii lagu heshiiyay wad ogsoontihiin saxaafada ka mid tihiin dalku sidoo loo leexiyay dalkii loo soo halgamay loo dhintay nafiya maalba loo waayay inay laba reer ay u heshiiyaan boobka ummadda Soomaaliland ka dhaxaysa marka waxaan u sheeganaa Soomaaliland inteeda kale inay wax iska weydiiyaan oo dulman iyaguna annaguna waxaan ka mid nahay beelaha dulman runtii wixii lagu heshiiyay 19 aynu ku heshiinay dalkii loo soo halgamay ay leexiyeen labada reer ee hagbada la baxay amba se jeegaanta abtirsiinta gaarka ana u sameeyay aad arkasay saxaafadu ka wada warqabto la ajligeed ba beeluhu ay u tashanayeen waana u tashanayaan ogeysiin baanay naga ahayde cid aanu u taganay cid aan wax ka suganaa midna ma jiro labada beelood waa labadii beelood ee qalloociyay wixii ummaddu ay wada lahayd runtii dadkuna ma wada xuma labada beeloodna ma wada xuma in ba wax qaloocisay laakiin waxaan nidhi bal ha dareemaan maadaama ay dareemi waayeen oo ay ka hadli waayeen xaq darrada jirta waxaan nagu kalifay inay dareemaan oo ay ogaadaan sida wax u qaloocdeen taa la ajligeed baan u soo casuumi weyn waanan halkaas aan ku haynana inta ay ka hadlayaan waxa xumaaday